qabanqaabadan waxaan uga mahad celinaa maamulka library-ga sidoo kale ka gol ahaana waxaanu soo dhaweynaa cid kasta oo ka soo qayb qaadatay oo timid degmada gaar ahaan weli xiriiryaha Axmed Kiise iyo ambassadorka iyo sidoo kale gareeqaanka runtii topic-an maanta u joognaa maadaama uu yahay hogaamintii cigaal maxaynu dhalinyaradu ay ka baran kartaa si symbolic character ah waxaanu eegayaa shakhsiga waxaynu eegaynaa hogaamiye dhashay muddo ku dhow qarni in laga joogo oo qarnigii wax yar ka dhiman yahay hogaamiye xilligaa dhashay ay ahayd xilli guumaysi joogo xilli la doonayay in heeryada la iska qaado xilli dadku ay aad qabaa'iladu u xooganaayeen xilli aan siyaasadda la fahamsanayn iyo tacliinta ayaanu rabnaa in dhalinyaro maanta generationka ilmaha yar laba jirka teknolojiyadda uu isticmaali karo inaynu ku mataalno wixii ay ka baran lahaayeen waxaan sidoo kale eegaynaa cigaal waxa weeyaan qoys wuxuu ka dhashay runtii siday gareeqaankii ay dhammaanba la sheegay buugtaba ku qoran qoys maalqabeena cigaal wuxuu qaatay in go'aankii aabihii ama waalidkiisii inuu ka baydho go'aankaasi waa go'aan la qaadan karo inaanad waalidkaa ku dayan haddii aad aragti iyo fishal leedahay kaa ku lamida waxaa qaatay Nelson Mandela oo aabihii markaa ahaa chief ama caaqilka markaa South East regionka South Africa waxaanay labadooduba si isku mid ah uga codsadeen in ay hamigooga waxa weeyaan waxbarasho u doontaan sidoo buuga waxa weeyaan duca qaba uu sheegayo in cigaal markii uu dhameeyay dugsiga ay aabihii Xaaji Ibraahim odayaal u diray oo ku yiri waa bal inamada inanka soo qabta maadaama hantidan isagu leeyahay ninkii hantidii ma soo jeedo odayaashii oo ka ergeenay cigaalna uu ka aqbalay maadaama saan loo oran waa waalidinkaar aabihii uu tagay wuxuu ka dhaadhicay markuu aabihii u tagay inuu higsigiisu yahay inuu siyaasi noqdo sidoo kale waxa sheegaya Yusuf Xaaji Aadan baa oo macallin ahaa cigaal baa wuxuu sheegaya inuu weydiiyay raantiisa xilligii iskuulka waxa uu rabo mustaqbalka inuu noqdo xilligaa wuxuu cigaal sheegay inuu rabo inuu siyaasi noqdo halka kelmadda siyaasi way ka duwan tahay waqti xadarkani dhalinyarada imika haddii la weydiiyo waxa koodnay waxa rabaa ama madaxweynaha rabaa ama wasiir position bay tilmaamayaan isagu process buu markaa tilmaamay wuxuu lahaa inuu siyaasi ma rabaa halka ay la gaadhaba markaa that's different waa ilaa hadda ay kala duwan yihiin baan aaminsanahay siyaasadda sidoo kale waxaynu ka baran karnaa processku maray cigaal siyaasaddii maadaama xilligaa dadkii waxbartay ugu horreeyey kumuu koobnaa secondary wuxuu isku dayay inuu jaamacad u galo anigu waxaan aaminsanahay aragtida ah in siyaasadda iyo hoggaanka iyo inaad bulsho maamusha inaad tacliin aad u barataa waa sidii gaadhin nin laysan u qaatay haddaad laysan ka tagto maalin unbu traafikada ku qaban markaa siyaasadda waad ka dhici haddaanaad waxa weeye weelkeega u qaadan cigaal processkiisuu dhammaystirtay dhallinyarnimadiisii ilaahayna ku guuleeyey waxaa kaloo haddaanu sii maadaama soo kaabisay cigaal runtii dee dhinacyo badan marka laga eego karakterkiisa oo si aynu uga dayano waxaa lagu tilmaamaa waxa charismatic leader hogaamiye balaaqi ah hogaamiye waxa weeyaan dareen leh bulshada iminka ay moodaa inay yaro dareemayaan in qofka hogaamiyuhu bulshada la dareen noqdo kelmaddaas way socotaa waqti xaadirkani xilligaa cigaal karakterka uu lahaa bulshadiisu markay gobonimo doonaysay uu raacayay kolba xaaladda isagoo ka badbaadinaya quwadaha waxa weeyaan Somaliland ku wareegsanaa oo ka mid tahay boqortooyadii Ethiopia waxa weeyaan siduu uga badbaadiyay siyaasaddu keenay waa kii siyaad baran ku dhacay marka halkaasna guurba runtii siyaasigu ka keenay baa la odhan karaa cigaal haddaan soo ururiyo kolley waynu sii geli doonaa cigaal waxaa la odhan karaa wuxuu ahaa hogaamiye runtii doonayay in qabyaaladda laga baxo xilligaa wuxuu asaasay iyadoo la doonayay in xil qarameedkii loogu kordhiyo wuxuu door biday in dastuur la sameeyo wuxuu door biday in xisbi la sameeyo in xisbi iyo waxa weyn urur laga soo bixisay qabyaaladda u yaraato assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay Khalid su'aashan rabaa weydiiyo nimanka odayaasha ay ka faa'iideysano dhammaantiin guule Khalid Farhad haddii aad soo koobi lahaydeen hal shay ama hal sifo ama hal arrin oo qof raba inuu noqdo hogaamiye ummadeed hal sifo oo qofku aanu la'aanteed hogaamiye noqon kari lahayn oo cigaalo uu lahaa maxay noqonaysaa taasi ta koobaad ee muhiimka waa qofka hogaamintiisa halka sifo as leedahay adigu taas haddii aanu lahaan lahayn muu noqdeen hogaami waxaan ku bilaabayaa bar
si kooban waxaan odhan lahaa hal adeyg iyo hilaadin in waxa uu doonayo inuu fuliyo dhabar adeego iyo inuu og yahay in beri la noolaanayo oo waayaha maanta ku gadaamanay aanay go'aaminaynin inuu sida uu maanta u nool yahay aanu u noolaanin laakiin berri uu jiil dhaxal uga tegayo dabeeta uu noqonayo hormood iyo haldoor dadku ku dayanayaan waxaan role modelka la yidhaahdo hogaamiyaha intaa laga helo uu dhallinyartana aan qabo weliba inay tahay taanu qaadano ama ay tahay inaanu qaadanaa marka laga helo waxaan qabaa inay tahay sifo uu gaar u lahaa amaba inta sifaha leh uu ka mid ah hagaag hilaadin iyo hal adayg waa si fiican ma fahanteen oo barxad aniga ugu af Soomaali badayay maadaama uu muddo dheer wariyeenimo kusoo shaqeynayay sidoo kale quraana yahay wuxuu sheegayaa inuu qofku aragti la yimaado mustaqbalka halkee ummadana hogaaminayso aad geynaysaa iyo sidoo ugu adkaysan lahaa caqabadaha ka hor imanaya qofka hogaamintu waa shaqo adag maaha sida dadka qaar moodayaan xafiis yaro ee siile iyo gaari yaro cado la fulaya maaha waa hawl qof bin aadan qabto hawsha ugu adag hogaamintu marka dhabar adeegii iyo hal adeegiina inuu qofku la yimaado labada hadduu qofku isla helo waa sifo aad iyo aad muhiim u ah waad mahadsantahay barxad guuled adigu maxay tahay taa aad xulan lahayd maxamed xaaji ibraahim cigaal imise jir buu ahaa markuu ra-iisul wasaaraha noqday ama hogaamiyihii somaliland waa da' badan oo hadda aynu idhaahno waa ciyaala xaafo soo ma 30 buu ka yaraa markuu SNL hogaaminayay 40 buu ka yaraa markuu Soomaaliya ra-iisul wasaaraha ka noqday wuxuu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ka noqday iyadoo dadkii Somaliland ka tagay ay in yar ku leeyihiin baarlamaanka